diinna loo ilaaliyaa wax fudud maaha. ugu horeyn qof kastoo ummad qariib ku ah, stranger ah, aan deegaanka iyo culture iyo dhaqanka ummaddaasi ka tirsanayn, ma fududa wixiisa inuu haysto meeshuu doonaba dunida ha ka joogo. qofka galbeedka yimina waxaynu nimi bii'a ama deegaan environment dhisan oo dowlad iyo system iyo nidaam leh, inagoo afraad oo qaybqaybsan oo keliya. su-aasha isweydiinta lena waxa weeyaan oo u baahan inaynu aad isu weydiinno, ma waxaynu u nimi inaynu wax ku beddelanno, mise waxaynu u nimi inaynu wax kororsanno? yani ma waxaynu u nimi maalan waxa quraynu la nimi waa diinteennii iyo nafteenna iyo carruurteenna, faamiligaagii oo dhaqan iyo af iyo diin haysta. marka ma waxaynu u nimi inaynu wax beddelanno oo maalan diin, dhaqan, af, waxa intaynu beddelno aynu wax kala qaadanno, mise waxaynu u nimi inaynu waxeennii wax ku darsanno oo hadafkeennu wuxuu ahaa intaadana hayso insha allahu in kalena ku kororso, ku siyaadsa keebuu ahaa, waayo mid kasta waxba ka ratibmaya. sideedaba qolada sociologiga waxa ay tilmaamaan qofka bini aadamka ah huwiyadiisa, identitygiisa, afkiisa, dhaqankiisa, diintiisa, wuxuu aaminsan yahay iyo bulshaduu la nooliyey waxay aaminsan yihiin hadday isku mid noqdaan qofkaasi wuxuu ku noolaada bay dhahdaan fii sacaada wa raaxa wa طminaan ilbaal, xasillooni, deganaansho iyo rayrayn iyo badhaadho. waa markuu qofku waxa uu rumaysan yahay siduu u fakerayo. maala markaynu waddankeenni joognay waxaynu la noolayn waddan afka aad la wadaagto, diinta aad la wadaagto, dhaqanka aad la wadaagto, wax walba aad la wadaagto. marka inaad adigu ama diinkaaga ilaashato ama ilmahaaga diintiisu ay ilaashanto, aqalil majhuud waxay dhahdaan effortka ugu yar, juhdiga, tamarta ugu yar iyo waqtiga ugu yar baad gelinaysa, maadaama bulshada wadaagtaan dhaqan iyo diin iyo afba. bulsho kastaana markay bulsho tahay ee dhisan tahay, huwiyadeeda ama waxay aaminsantahay ama diinkeeda waxa ilaaliya kow wasaarad dhan oo dowladdu u samaysato, wasaaradda waxbarashada la yidhaaho. waxaa kaloo ilaaliya iclaamka waddanka, media, tv ha noqdo ama raadiyo ha noqdo ama jariidad ha noqoto ama media waddankuu leeyahay, mainstreamka. waxaa kaloo ilaaliya nidaamka iyo qaanuunka iyo systemka waddanka, oo haddii inta aad ka soo gudubto waxaa ku qabanaya maxay? qaanuun baa ku qabanaya. marka waa ummaddu markay caynkaa u dhisantay. haddaba marka aad timaado adigoo qof qura ah ama laba ah ama 10 qof oo kala gedisana, aad u timaado bulsho sidaa u dhisan, bulsho dhaqankeedii, afkeedii, schooling systemkeedii, mediaheedii, waxbarashadeedii, qaanuunkeedii u dhisan yahay, qariib aad ku tahay, stranger yimi aad tahay, aad se rabto waxaagiina inaad ilaashato, waxna ka kororsato, waa qof iyo bulsho markaa iska hor yimi. laba shay baad dareemaysaa bay leeyiin. kow, qurba, qariib inaad tahay. ka labaadna waxay dhahdaan challenges, waxyaabaha kaa hor imanaya inay wax xooggan yihiin. haddii aad rabto markaa inaad maintain garayso, inaad haysato waxaagii, waxna kororsatid, lama mid ahaa markii aad ku noolayd bulshadii ay isku dhanka u socoteen. marka kan waxaad u baahantahay bay leeyihiin wakhtiga ugu badan iyo xoog iyo xoolaha ugu badan inaad geliso waxaagii hore saad u xejin lahayd, intaa kadibna aad ziyaado soo hesho.
غربدو وهدعي كرتيني كثرة الشبهات هاي معتقد كي وحلا من سين وآدو كلا قد سي الشبهة بدن وحبدن كشكي قلي دين هان إن يكون صبيريان أما وحدعي كرتيني تهي كثرة الشهوات وحبدن أو شهوات النفس كاغا كعية منصب دون كاغا العق دون كاغا باهي بني آدم كي كلا قد سن وحبدنو هور أرضه أسأل هانا إلهي قرآن كوحكوير وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن تطع أكثر من في الأرض